kulanti wacan asxaabta ku xiran cilmi waare media kuna soo dhawaada xubnihii isboortiga aad uga barateen inaad kala socotaan cilmi waare media. maanta waxaan ku bilaabayaa sugitaankii waa dhammaaday waxaana dib u bilowday horyaalka dalka Ingiriiska ee Premiershipka iyadoo uu guul ku bilowday mashruuca dib u bilaabista iyo dhamaystirka horyaalka dalka Ingiriiska ee Premier League sanadka 2019-2020. 92 kulan oo ka harsan horyaalka heerka koobaad ee dalka Ingiriiska ee Premier League iyo midka labaad ee Championshipka ayaa la qorsheynayaa iyadoo maantana la ciyaaray labadii kulan ee ugu horeysay horyaalka dalka Ingiriiska ee Premiershipka kadib markii hakad uu ku jiray muddo 100 maalmood ah sababo la xiriiray cudurka coronavirus-ka. dhammaan ciyaartoyda, tababarayaasha iyo shaqaalaha koox kasta ayaa baaritaan la soo marsiiyay dhowr mar ka hor intii aan loo diyaar garoobin bilaabashada horyaalka dalka Ingiriiska ee Premiershipka. waxaa si adag looga taxadirayaa caafimaadka ciyaartoyda, tababarayaasha iyo waliba shaqaalaha kale iyadoo garoomadu ay marnaayeen isla markaana la buufinayay kubadaha lagu ciyaarayay. kale waxaa la buufinayay calaamada suran goobaha laga tuuro koornada iyadoo dhammaanba ciyaartoydana ay u muuqdeen kuwa u soo diyaar garoobay dib u bilaabista iyo dhamaystirka horyaalka dalka Ingiriiska ee Premiershipka. funaanadaha ay koox kasta wadatay ayaa waxaa qaybta hore uga sawirnaa calaamada ama loogada ay leedahay waaxda adeega caafimaadka qaranka ee Ingiriiska oo loo yaqaano NHS, waxaana garab istaag loogu muujinayay shaqaalaha caafimaadka kuwaasi oo muujiyay geesinimo isla markaana la dagaalay cudurka safmareenka ah ee coronavirus oo caalamka harqiyay. sidoo kalena dhabarka dambe ee funaanada halkii magaca ciyaartoyda lagu qori jiray waxaa lagu muujiyay dhaqdhaqaaqa astaanta ah Black Lives Matter oo ah macno ay leedahay nolosha dadka madowga ah. waxaana la sheegay in 10 kulan oo soo socota horyaalka dalka Ingiriiska magaca ciyaartoyda aan funaanadaha lagu qori doonin isla markaana ay calaamadaasi ama astaantaasi nolosha dadka madowga ah macno ay leedahay ka muuqan doonto dhabarka ciyaartoyda. ka hor intaysan ciyaartu bilaaban markii ciyaartoydu isku leynayeen waxay wateen funaanada madow oo sidoo kale ay ku qornayd nolosha dadka madowga ah macno ay leedahay. ka hor intaysan ciyaarta bilaabanna dhammaan ciyaartoyda, tababarayaasha iyo sidoo kale garsooraha jilibka ay dhulka dhigeen iyagoo sidoo kale garab istaag u muujinayay dhaqdhaqaaqa ah nolosha dadka madowga ah macno ay leedahay. ciyaartii ugu horeysay waxay ka dhacday gegida Villa Park waxaana iswada haleelay kooxda Aston Villa oo kamid ah saddexda kooxood ee horyaalka dalka Ingiriiska ee Premier League ugu hooseysa iyo waliba kooxda Sheffield United oo horyaalka uga jirta kaalinta lixaad isla markaana u qaltaagaysa inay ka mid noqoto afarta kooxood ee sanadkan ugu sareeya horyaalka dalka Ingiriiska ee Premiershipka. ciyaarta labada kooxood dhaxmartay gool la'aan ayay ku ildaatay laakiin waxaa hareeyay muran gool daqiiqadii 43aad ee dhamaadkii qaybtii hore ee ciyaarta ay dhalisay kooxda Sheffield United laakiin kaamarooyinkii garoonka ku xirnaa iyo waliba aaladda goal line technology oo loo isticmaalo marka uu gool ku dhaafo xariiqinta goosha ku dhex taala ay kaamarooyinkii qaban waayeen kadib markii ay ku aadeen goolahayaha kooxda. mid ka mid ah difaacyada kooxda Aston Villa iyo sidoo kale birta goosha ayaa goal line technology aysan soo qabanin goolkaasi. muran weyn ayaana ka dhashay waxaana goolkaasi diiday garsoorihii ciyaarta. markii ciyaarta ay dhamaatay ayaa tababaraha kooxda Sheffield United ninka la yiraahdo Chris Wilder waxa uu sheegay in wax laga xumaado ay tahay in 7 kaamaro oo garoonka ku xirneyd ay qaban waysay goolkaasi isla markaana la diiday waxaana ciyaarta loo xugmiyay in gool la'aan eber iyo eber ah ay ku dhamaatay. markii ciyaartu ay idlaatay ayaa shirkadda sameysay aaladda muranka goolasha lagu kala saaro ee goal line technology oo la yiraahdo Hawk A waxa barteeda Twitter-ka ay ku soo qortay raali gelin ay siisay kooxda Sheffield United waxaana ay sheegtay in arrintan ay ku ahayd arrin cusub oo wali haysan horan u arkin. shirkaddan sameysay aaladda goolasha muranka lagu kala baxa sameysay ee Hawk A waxaana ay xaqiijisay in 90,000 oo kulan oo horay aaladan loogu isticmaalay muran noocan wali uusan dhalan. waxaana raali gelinta ay barteeda Twitter-ka ku soo qortay shirkaddan sameysay goal line technology oo la yiraahdo Hawk A ay sheegtay in muranku uu ka yimid maadaama ay goolkaasi halkii kaamarooyinka ay ka arki lahaayeen kaamarooyinka ay isku aadiyeen goolahayaha kooxda Aston Villa mid ka mid ah difaacyadooda iyo sidoo kale birtii goosha ku tiilay taasina ay sababtay in murankaasi uu dhasho isla markaana aysan suuro gelin in kaamarooyinku ay goolkaasi qabtaan si loo kala saaro. kulankii xigay waxaa isfarasaaray kooxda Manchester City oo gegideeda Etihad Stadium ku martigelisay kooxda Arsenal
kulankaasi waxaa hareeyay dhaawacyo kala duwan. Bilowgii ciyaarta daqiiqadii 8aad waxaa kooxda Arsenal ka dhaawacmay ciyaaryahan Granit Xhaka oo garoonka looga saaray iyadoo Barella lagu wado, waxaana booskiisa lagu bedelay Dani Ceballos. Sidoo kalena 24 daqiiqo markii ay ciyaartu maraysay waxaa sidoo kale dhaawac uu soo gaaray daafaca kooxda Arsenal Pablo Mari oo isagana garoonka isaga baxay si loo daweeyo. ciyaarta ayaa dhammaadkii qaybtii hore waxaa gool u dhaliyay kooxda Manchester City ciyaaryahan Raheem Sterling, sidaasi ayaana lagu kala nastay qaybtii koobaad. Soo laabashadii qaybtii labaad ayaa markii daqiiqadii 50aad waxaa kaarka casaanka loo taagay daafaca kooxda Arsenal ninka la yiraahdo David Luiz kadib markii xariiqinta 18 uu ku legday ciyaaryahan Riyad Mahrez, waxaana garsoorihii ciyaartaasi Anthony Taylor oo ciyaarta ka saaray ciyaaryahan David Luiz, waxaana gool kulaad u dhaliyay oo ah goolkii labaad ee kooxda Man City ciyaaryahan Kevin De Bruyne. sidoo kalena waxaa mar kale dhaawac uu soo gaaray daqiiqadii 81aad ee ciyaarta mid ka mid ah daafacyada kooxda Man City Eric Garcia markii ay isku dhaceen goolhayaha kooxda Man City Ederson oo isku dayay inuu kubad bixiyo 8 daqiiqo oo garoonka dhex yeelay. Markii dambe Barella ayaa garoonka looga qaaday weliba iyadoo oxygen u xirnaa, waxaana labada kooxood daqiiqadihii ugu dambeeyay oo 11 daqiiqo ee ciyaarta ay ku dhameysteen min 10 daqiiqadihii lagu daray ciyaarta oo ahaa 10 daqiiqana waxaa gool saddexaad u dhaliyay kooxda Man City ciyaaryahan Phil Foden. kooxda Man City ayaa waxay xajisanaysaa kaalinta labaad ee horyaalka, waxaana ay leedahay 6 dhibcood halka Arsenal ay horyaalka uga jirto kaalinta 9aad. 40 dhibcood ayay leedahay, 8 dhibcood ayayna u jirtaa kooxda Chelsea oo kaalinta 4aad ee horyaalka fadhisa. labada kooxood min 5 bedel ayay sameeyeen maadaama ay qoraxdu aad u kululeyd, waxaana loo ogolaaday ciyaartoyda in labadii qayba ay min hal jeer biyo cabaan maadaama xilligan lagu guda jiro xilliyadii ugu kululaa dalka Ingiriiska. tababarayaasha layliya kooxaha ka ciyaara heerka koobaad ee horyaalka dalka Ingiriiska ee Premier League ayaa waxaa lagu amray in aysan la murmin garsoorayaasha ciyaaraha dhexdhexaadinaya inta ay socoto ciyaarta amaba marka ay dhammaato, waxaana tababarayaasha loo sheegay in cabashada ay ka qabaan garsooraha ay soo gudbiyaan si qoraal ah 24 saac kadib markay ciyaarta dhammaato. waxaana tababarayaasha Premier League loo sheegay in haddii ay jebiyaan sharciyadaasi lagu amray in ay mutaysan karaan in la ganaaxo, waxaana arrintan looga gol leeyahay maadaama sharciyo adag oo ah dhanka kala fogaanshaha dadweynaha loo dejiyay Premier League iyadoo la doonayo in la dhammaystiro xilli ciyaareedkiisa sanadka 2019-2020. horey waxaa u dhici jirtay in tababarayaasha Premier League ay la murmaan garsoorayaasha inta ay ciyaarta socoto. qaarkood waxaa dhici jirtay in calaamada huruudda la siiyo halka qaarkoodna calaamada guduudka loo taagi jiray marka ay si toos ah ula murmaan garsooraha ciyaarta dhexdhexaadinaya. laakiin hadda waxaa loo sheegay in loo baahan yahay in cabashadooda qoraal ay ku soo gudbiyaan 24 saac kadib markay ciyaarta dhammaato, waxaana tababarihii jabiye la sheegay in ganaax uu mutaysan doono. dib u bilaabashada horyaalka heerka labaad ee dalka Ingiriiska ee Championship-ka ayaa muran weyn ka jira kadib markii baaritaankii ugu dambeeyay oo lagu sameeyay 2213 ciyaartooy, tababarayaal iyo sidoo kale shaqaale caafimaad isugu jira la sheegay in la helay ilaa iyo 8 qofood oo qaba cudurka coronavirus oo isugu jira ciyaartooy iyo sidoo kale shaqaalaha kooxaha, isla markaana 6 kooxood oo kala gedisan kiisaskaasi laga helay. 2 maalmood oo kaliya ayaa ka dhiman bilaabashada horyaalka heerka labaad ee dalka Ingiriiska ee Championship-ka oo lagu waday in 20ka bisha uu bilowdo. kooxaha laga helay waxaa ka mid ah kooxda Brentford oo la filayay Sabtida inay la ciyaarto kooxda Fulham, waxaana la filayaa kulankaasi in la baajin doono. sidoo kalena kooxaha ka ciyaara heerka 3aad ee horyaalka dalka Ingiriiska ayaa sidoo kale waxaa laga helay baaritaan lagu sameeyay 254 ka mid ah ciyaartooyda iyo shaqaalaha koox kasta 2 qofood oo qaba cudurka coronavirus, halka heerka 4aadna baaritaan lagu sameeyay 174 qof aan waxba laga helin. kooxaha sidoo kale laga helay waxaa ka mid ah kooxda Bristol City. maalqabeen u dhashay dalka Mareykanka oo lagu magacaabo Henry Moores ayaa dalab ah 350 milyan oo pound waxa uu dhiibtay inuu ku iibsado kooxda Newcastle United oo ka ciyaarta horyaalka heerka koobaad ee dalka Ingiriiska ee Premier League. kooxda Newcastle United ayaa bishii Abriil waxaa dalab u soo dhiibtay shirkadda uu madax ka yahay dhaxal sugaha dalka boqortooyada Sacuudi Carabiya Mohammed bin Salman, waxaana uu doonayay inuu ku iibsado lacag dhan ilaa iyo 300 milyan oo pound. laakiin tacdiyada dhanka xuquuqda aadanaha iyo sidoo kale in uu doonayay in shirkad laga leeyahay dalka Sacuudiga
ay qaadato baahinta xuquuqda horyaalka dalka Ingiriiska ee Premiershipka ayaa weli ka hortaagan inuu si toos ah ula wareego kooxda Newcastle United, inkastoo milkiilaha kooxda Newcastle United Mark Ashley uu horey u aqbalay dalabka ah 300 milyan oo pound, laakiin hadda 50 milyan oo dheeri ah ayaa maalqabeenkan u dhashay dalka Mareykanka Henry Moores uu ku doonayaa in 350 milyan oo pound uu kula wareego milkiyadda kooxda Newcastle United. Ninkan lagu magacaabo Henry Moores ayaa waxa uu leeyahay shirkad la yiraahdo Clear TV oo adeegyo baahineed siisa eeraboorada iyo isbitaalada wadanka Mareykanka, waxaana uu aasaasay sanadkii 2014, waxaana sidoo kale horey u lahaa shirkad dhinaca credit karada oo la yiraahdo Credit American Corporation oo aasaasay sanadkii 1998, waxaana uu sheegay in uu doonayo inuu si dhaqso ah kula wareego milkiyadda kooxda Newcastle United inta uusan bilaaban xilli ciyaareedka soo socda ee sanadka 2020-2021. Ninkan maalqabeenka Mareykanka ayaa waxa uu degan yahay magaalada Burbank ee California. Xiriirka kubadda cagta ee qaaradda Yurub ee UEFA ayaa maanta waxa ay ku dhawaaqeen xilliyada la bilaabayo lana dhammaystirayo labada koob ee ugu waaweyn qaaradda Yurub ee UEFA Champions League iyo sidoo kale koobka labaad ee qaaradda Yurub ee UEFA Europa League. Koobka naadiyada Yurub ee Champions League ayaa waxaa loo qaban doonaa qaabka koobka adduunka iyadoo tartan yar laga dhigi doono, waxaana ciyaaraha lagu qaban doonaa magaalada Lisbon ee caasimadda dalka Boortaqiiska. 8-damaadka iyo 4-damaadka hal lug ayaa la ciyaari doonaa intii 2 lug la ciyaari jiray, waxaana koobkan la filayaa in uu bilowdo 12-ka bisha Agoosto iyadoo la filayo in 23-ka bisha lasoo gabagabeeyo. 12 maalmood oo kaliya ayaana koobkan u socon doonaa. Kulamadii ka harsanaa wareegga 16 ayaa la filayaa in la ciyaaro 5 ilaa 6 bisha Agoosto oo ah bisha 8. Madaxweynaha xiriirka kubadda cagta ee qaaradda Yurub ninka la yiraahdo Alexander Seferin ayaa waxa uu sheegay in bartamaha bisha July go'aan laga gaari doono in taageerayaasha loo ogolaan doono inay daawadaan koobka naadiyada Yurub ee Champions League iyo weliba kan labaad ee qaaradda Yurub ee Europa League. 4 garoon oo ku yaala magaalada Lisbon ee caasimadda dalka Boortaqiiska uu ku jiro garoonka ay ku ciyaarto kooxda Sporting Lisbon ee Stadio José Alvalade ayaa lagu ciyaari doonaa kulamada 8-damaadka iyo 4-damaadka oo hal lug la ciyaari doono, waxaana ciyaarta kama dambaysta ee koobka naadiyada Yurub ee Champions League 23 bisha Agoosto lagu ciyaari doonaa garoonka kooxda Benfica oo la yiraahdo Stadio da Luz. Ciyaarta kama dambaysta ee koobka naadiyada Yurub ee Champions League ee sanadka 2020 ayaa lagu qaban rabay magaalada Istanbul, halkaasi oo la sheegay in sanadka dambe ee 2021 lagu qaban doono garoonka Atatürk Stadium oo ku yaala magaalada Istanbul. Sanadka 2022 ayaa ciyaarta finalka ee koobka naadiyada Yurub ee Champions League waxa lagu qaban doonaa magaalada St Petersburg ee dalka Ruushka, halka sanadka 2023 lagu qaban doono magaalada Munich ee dalka Jarmalka. Sanadka 2024 finalka koobka naadiyada Yurub ee Champions League waxa lagu qaban doonaa gegida Wembley oo ku taala caasimadda dalka Ingiriiska ee London. Ilaa ay hadda kooxaha u soo baxay 8-damaadka waxaa ka mid ah kooxda PSG, Atlanta, Atletico Madrid iyo RB Leipzig oo ka kala socda Jarmalka, Spain, Talyaaniga iyo weliba Faransiiska. Kulamada harsan ee la ciyaari doono ayaa waxaa ka mid ah kulamada dhexmari doona Man City iyo Real Madrid, Chelsea iyo Bayern Munich, Juventus iyo Lyon, Napoli iyo weliba Barcelona. Xiriirka UEFA ayaa waxa ay sheegeen in koobka naadiyada Yurub ee Champions League ee sanadkiisa 2020-2021 uu dib u bilaaban doono 20ka bisha Oktoobar ee sanadka 2020. Xiriirka UEFA ayaa sidoo kale maanta ku dhawaaqay in la dhammaystirayo koobka labaad ee qaaradda Yurub ee UEFA Europa League. Koobkan ayaa sidoo kale waxaa lagu ciyaari doonaa 4 magaalo oo ku taala dalka Jarmalka, waxaana ay kala yihiin magaalooyinka kale ah Duisburg, Düsseldorf, magaalada Gelsenkirchen oo kooxda Schalke garoonka ay ku ciyaarto, iyo sidoo kale magaalada Cologne oo sidoo kalena halkaasi finalka lagu qaban doono. Koobkan ayaa waxa uu bilaabanayaa 10 Agoosto waxaana la soo gabagabayn doonaa ciyaartiisa kama dambaysta ay dhici doontaa 21 Agoosto iyadoo lagu ciyaari doono garoonka ay ku ciyaarto kooxda FC Cologne ee dalka Jarmalka. Waxaana sidoo kalena wareegyadiisa 4-damaadka iyo 8-damaadka la ciyaari doona min hal lug, iyadoo kulamadii ka harsanaa wareegga 16 la ciyaari doono 5 ilaa 6 bisha Agoosto. Sidoo kale madaxweynaha xiriirka kubadda cagta ee qaaradda Yurub ee UEFA ninka la yiraahdo Alexander Seferin ayaa waxa uu sheegay in ay doonayaan in la dhammaystiro labadan koob si ay u suura gasho in labada koob oo kale ay bilowdaan waqtigii loogu talagalay.
ciyaarta kama dambaysta ah ee koobka Europa League ayaa waxaa la filayaa in lagu qabto magaalada Cologne. Horeyna waxaa loogu qaban rabay magaalada Gdańsk ee dalka Poland, oo hadda la sheegay in finalka koobka Europa League ee sanadka 2021 ay martigelin doonto, halka sidoo kalena magaalada Sevilla ee dalka Spain sanadka 2022 ay martigelin doonto. Magaalada Budapest ee caasimadda dalka Hungary ayaa sidoo kale waxa ay martigelin doontaa finalka koobka Europa League ee sanadka 2023. Kooxaha isu soo haray ayaa waxay kala yihiin oo ay u wada ciyaari doonaan Basel iyo Frankfurt, Leverkusen iyo kooxda Rangers, FC Copenhagen iyo kooxda Istanbul, Inter Milan, Getafe, Man United iyo kooxda Lask oo dalka Austria ka socota, Sevilla iyo kooxda Roma, Shakhtar Donetsk iyo Wolfsburg, halka kooxda Wolvesna ay sidoo kale la ciyaari doonto kooxda Olympiacos. Isku aadka labada koob ee qaaradda Yurub ee UEFA Champions League iyo Europa League ee sanadka 2020-2021 ayaa waxaa magaalada Athens ee caasimadda dalka Greece lagu sameyn doonaa 1 iyo 2 bisha Oktoobar ee sanadka 2020. Kooxda Napoli ee dalka Talyaaniga ayaa ku guuleysatay koobkeedii 6aad ee Coppa Italia kadib markii ciyaartii ay la ciyaartay kooxda Juventus ay gool la'aan eber iyo eber ah ku dhamaatay 120 daqiiqo oo labada kooxood ay wada ciyaareen. Macallin Mauricio Sarri, macallinka kooxda Juventus, ayaa weli raadinaya koobkiisii ugu horeeyay uu la qaado kooxda Juventus, halka macallinka kooxda Napoli Gennaro Gattuso uu koobkiisii ugu horeeyay isagoo tababara u hantay kadib markii hoggaanka kooxda Napoli loo dhiibay bishii December ee sanadkii hore. Labadan kooxood ayaa wada ciyaaray finalka Coppa Italia oo horey u qorshaysnaa 13 bishii hore ee May in la qabto, laakiin sababo la xiriira cudurka coronavirus-ka dib uu u dhigay, waxaana kooxda Napoli ay ku guuleysatay koobkeedii 6aad iyadoo ciyaarta rigooro 4-2 ay kooxda Napoli koobka ku hanatay. Kooxda Juventus ayaa waxaa rigooradii koobaad u tuuray ciyaaryahan Dybala iyadoo goolhayaha kooxda Napoli uu ka badbaadiyay, halka rigooradii labaadna kooxda Juventus uu cirka mariyay ciyaaryahan Danilo. Kooxda Napoli ayaa 4 rigooro ay tuuratayba dhalisay, iyadoo sidoo kalena rigoorada u dambeeyay uu u dhaliyay ciyaaryahan Milik. Ciyaaryahan Ronaldo ayaa ku sigtay inuu ilmeeyo kadib markii laga qaaday koobka Coppa Italia. guud ahaanba intaasi ayaan kusoo koobaya xubnihii isboortigu aad kala socoteen Cilmi Waare Media. haddii aad ka heshay warbixinadan subscribe saar gambalelkana furo Cilmi Waare Media si aad u hesho warbixinadan mustaqbalka soo geliyo. haddii aad leedno intaan mar kale kulmi doono, sidaa iyo nabadgelyo.